taariikhdu waa February 8 2021 waxaa tiyaatarka qaranka ee Muqdisho isku doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo 327 cod ayuu helay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ay doorteen xildhibaano u badan taageerayaashiisa iyo ciidanka NISA. Hoolka sahal ee ku dhow aeroboortka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa xilka madaxweynaha loogu doortay Mudane Shariif Sheekh Axmed. Maalin kadib waxaa Muqdisho ka dhacaya dagaalo lagu hoobtay ciidamo kala taageersan Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Farmaajo ayaa wuxuu dagaal qaraar ku dhex maraya xaafadaha u dhow fiilla Soomaaliya. cisbitaalada waxaa buuxdaafiyay dhaawac barakac ballaaran ayaa ka socda magaalada Muqdisho. warkan iyo dhacdooyinkani weli wax dhacay ma aha, waa saadaalan habboonayn hase yeeshee u dhow xaqiiqda marka la eego siyaasadda madaxweyne Farmaajo oo 4 bilood ee ugu dambeysay ku salaysnay doorasho boob iyo bililoqo siyaasadeed ah. waxaa la filayo haddii ay hoog iyo dagaal sokeeyo tahay maanta 4 sano ka hor xaalka doorashada Soomaaliya sidoo ahaa. dalkuna hore u socdo dimuqraadiyadduna hore u socoto Soomaaliya ha noolaato 2017 dalka waxaa ka dhacay doorasho xasiloon oo xukunka iyo xilka si nabad ah loola kala wareegay. xildhibaanadii doortay iyo dadkii Soomaaliyeed ee soo dhaweeyay madaxweyne Farmaajo rajadii iyo dareenkii ay qabeen wax ka duwan ayaa dhacay 4 sano oo uu xukunka hayay. anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xidhan ciidamo la sheegay in ay yihiin kuwa ammaanka ayaa xala weeraray guri inaan u shaqeeyo rabaan walaalayaal waxaa naga dhaxeeya arrin dastuuri ah oo kala qeexan inaan korjoogteyno waxaa batay siyaasiyiin xanaaqsan waxaan ku cadibanahay isbitaalka Kismaayo oon u laanahay diyaarado lug baa la iga hayaa. maxaa ku soo beegay xilligan in beeluhu shirar noocan ah isugu yimaadaan shirweynaha wada tashiga beelaha waale magaca kumadu la dagaalamaya dadka reer Sade adeegidin waxaa laga rabaa inay beelaynta mudulood ayaa xadiid Cabdulaahi Farmaajo min Taliyas walna min ihidi ayna marsay kaare Farmaroqsiga doorashada ee Farmaajo wada waa la qiyaasi karaa halka ay ku dambeyn doonto, hase yeeshee haddii aan tilmaano waa kala tag rajabeel iyo dagaal sokeeyo oo hor leh. haddiise uu madaxweynuhu xilkas noqdo oo aqbalo dooda murashaxiinta ee ah doorasho hufan oo xalaal ah, waa laga baaqsan karaa in dalku mar kale uu mugdi iyo meel xun galo.